halkani waa warbaahinta Voice of Sinai oo aad ka dhageysataan mowjadaha 9.5 oo ku geedaaman dugsiga hoose dhexe ee Sinai. Dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada warkeena ugu darka runaa oo ina la socodsiinaya aniga Abshir Cabdinuur. dawladda Soomaaliya wardadii ugu horeysay ka soo saartay dalka Suudaan. wasiirka arrimaha dibadda Burundi oo safar boqosho ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. إيران وعصومات ورترتي بقر سلمان بن عبد العزيز كسعودية دبلوماسيين iyo shaqaale Mareykan ah oo laga daadguray colaadda Suudaan intaas waxa qodobada warkan oo ka kooban haddana ku soo dhawaada qodobada warkan oo faahfaahsan dawladda Soomaaliya wardadii ugu horeysay ka soo saartay dalka Suudaan qodobkan oo faahfaahsan waxa xarunteena dugsiga hoose dhexe Sinai nooga soo diray wariyaheena Ikraam Faarax Maxamed dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ardayda Soomaaliyeed ee ku xayir dalka Suudaan ay u dadgureysay dalka Itoobiya kusmaha xogayaa joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaare ayaa sheegay in ilaa hadda kota kamid ah ardayda la geeyay xuduudda Itoobiya sidoo kale waxa uu sheegay in safaaradda Soomaaliya diyaarisay gaadiidka ardayda kale looga bixin lahaa dalka Suudaan Dajira Diinaare ayaa intaas ku daray in maalmaha soo socda ay ardaydan u gudbi doonaan gudaha Itoobiya kadibna loo qaadi doono dalka Soomaaliya qaar kamid ah ardayda Soomaalida ee ku sugan caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan ayaa hore u sheegay in dawladda Soomaaliya uga codsadeen inay ka daadgurayso dalkaas dalka Suudaan ayaa waxa wax ka baran jiray arday badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ka kala yimid dhammaan gobolada dalka Soomaaliya waxaana sidoo kale sanad kasta deeq waxbarasho geli jiray kumanaan arday oo ka soo baxa dugsiyada sare Ikraam Faarax Maxamed Cabdi Voice of Sinai dugsiga saddex Sinai ee degmada Galkacyo diblomaasiyiin iyo shaqaale Mareykan oo laga daadgureeyay dalka colaadaha ka socda dalka Suudaan qodobkan oo faahfaahsan waxa xarunta dugsiga hoose dhexe Sinai nooga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Saciid shaqaalaha safaaradda Mareykanka iyo qoysaskooda ay ciidamada Mareykanku ka daadgureeyeen caasimadda Suudaan ee Khartoum halkaas oo ay dagaal ka socdaan sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden iyagoo fulinaya amarka militariga Mareykanku waxay sameeyeen howlgal ay Khartoum kaga soo saareen shaqaalaha dawladda Mareykanka ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray dagaalada u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF oo galay toddobaadkii labaad ayaa waxa ku dhintay 100 qof halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen saacado ka hor kooxda dagaal kula jirta ciidamada Suudaan ee RSF waxay ku dhawaaqday in howlgalka militariga Mareykanka oo ka kooban 6 diyaaradood ay kala shaqeysay sidii Suudaan looga daadgureyn lahaa diblomaasiyiin Mareykan ah iyo qoysaskooda shaqaalaha safaaradda Mareykanka ayaa loo qaaday goob aan la shaacin oo ku taal Itoobiya sida wakaaladda wararka ee AB u sheegeen laba sarkaal oo Mareykan ah kuwaas oo wax badan kala socda howlgalka daadgureynta waxaana ilaa iyo hadda rumaysan yahay tirada laga saaray dalka Suudaan inay gaarayso ilaa 70 qof oo Mareykan ah Cabdiraxmaan Saciid Maxamed idaacadda Voice of Sinai dugsiga hoose dhexe Sinai magaalada Galkacyo arrimaha dibadda ee Burundi ayaa safar boqosho ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qodobkan oo faahfaahsan waxa xarunta dugsiga hoose dhexe Sinai nooga soo diray wariyaheena Maxamed Maxamuud wasiirka arrimaha dibadda horumarinta ee iskaashiga Burundi Albert Shingaro iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho oo ay ka bilaabatay booqasho rasmi ah oo laba maalin ah Shingaro ayaa waxa magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Jaama oo ay kulan hordhac ku yeesheen caasimadda sida la sheegay qoraal kooban ka soo baxay wasiir Abshir kulanka labada mas'uul ay uga wada hadleen taageerada xagga ammaanka ee Burundi ay siiso Soomaaliya iyo qayb ka ah howlgalka ATMIS ee ciidamada Midowga Afrika wafdiga wasiirka uu ka mid yahay General Silas Nitrawi oo ah la taliyaha madaxweynaha Burundi ee dhanka ciidamada ayaa la filayaa in ay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sida la sheegay ay la wadaagi doonaan dhambaal ay ka sidaan madaxweynaha Burundi Maxamed Cabdiraxmaan idaacadda Voice of Sinai Premier School Galkacyo إيران أي عصومات ودرتي بقر بن سلمان بن عبد العزيز كسعودية قلب كانوا فافاز واحد حرمت دكسي وصدح سينا نوغا صدري وريهن إني عبد القادر إيران ayaa sheegtay inay si rasmi ah ugu casuuntay boqorka Sacuudiga boqor Salmaan inuu booqasho ku yimaado Tehran kadib heshiisiin ah oo bishii hore ay gaareen labada wadan Sacuudi Carabiya ayaa xiriirka u jartay Iiraan sanadkii 2016 kadib markii safaaradda Tehran iyo qunsuliyadda ku taal magaalada Mashhad ee waqooyi galbeed ee dalkaasi la weeraray xilli ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeeday xukunkii Riyaad ay ku fulisay wadaadkii Shiiciga ahaa ee Nimar al-Nimar labada quwadood ee bariga dhexe ayaa dhowr wareeg
oo wadahadal ah ku yeeshay Ciraaq iyo Cumaan kahor inta aan la gaarin heshiiskii rasmiga ahaa ee 10 Maarso kaas oo ka dhacay dalka Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasser Kanani ayaa sheegay in madaxweynaha Ibrahim Raisi uu ku casuumay boqorka Sacuudiga inuu soo booqdo Iran. Cabdiqaadir xasan idaacadda Fursad Siinay dugsiga dhexe Siinay ee degmada halkaas ayaynu u eegtay idaacaddeena subaxnimo oo la socodsiinay aniga Abshir Cabdinuur waxa soo saaray Ikraam Farax Maxamed waxa farsameeyay Maxamed inta warkan warkiisa xiga kulmayna sidaas nabadgelyo.